السلام عليكم maalmaha soo socda oo ugu soo wajahan sidee ayaan u qaabilaa oo aan anigana u wajahaa ma aqaano sidee ayaan ula tacaamulaa walwalkan iyo murugadan dusha iga fariisatay sidoo kale ma aqaano cabsida ayaa waxay si qarsooda ku soo gashay qalbigayga kadibna xarun fariisan ku yeelatay mana aqaano si aan uga baxsado ma jira qof imaqlaayo oo wax uu ii sheega ma jira qof isiiyo qito ama wado aan uga baxsado cabsidaas qalbigayga fariisatay waa kan aniga ayaa ku maqlaaya aniga ayaa ku haay qitadii aad uga baxsan lahayd cabsidaas qalbigaaga fariisatay kaliya waxaad isiisaa fursad yar oo aan kugu sheega arimo muhiim ku ah adiga waxaad isiisaa daqiiqada yar oo aad muuqaalkan ku daabatid waayo qofkan hadeer kula hadlaaya waa qof soo maray waxa aad adiga hadeer maraysid waa qof waqti noloshiisa kamid ah ku noolaa noloshan aad adiga hadeer ku nooshahay laakiin ka baxsaday noloshaas adag kana luga siibtay kadib markii uu ku dhaqaaqay qodobo faro ku tiris ah walaal warkoo kooban haddii aan kuu sheego aamus ee si wacan ii dhegayso dib ma lahan inaad walwashid oo aad murugootid dib ma lahan inaad mustaqbalka ka cabsatid cabsidu waa fitra ama dabeecad oo uu bini aadamka ku dhasho dib ma lahan inaad cadaadis dareentid inaad la kulantid wax ku dareensiiyey inaad daciif tahay laakiin dhibku wuxuu ka taagan yahay inaad arrinta siisid in ka badan inta ay mudan tahay inaad siisid in ka badan xajmiga ay macquulka ku tahay fiiri maalmaha kugu soo foodan oo ku soo haya waxaad fiirisaa nolosha kugu soo wajahan kadib waxaad ku dhahdaa aniga ma ihi qof u istaaga caqabad soo wajahday fiiri kadibna ku dheh waxaan ahay qof leh shakhsiyad xoogan waxaan ahay qof haysta fikrad diyaarnu ah inuu dhaqan geliyo fikradaas wax waliba dhacana waxaan ahay qof xoogan oo aynan jibin karin kana adkaan karin caqabad soo wajahday waxaad la hadashaa caqabadda waxaadna ku tiraadaa wajihidaada waxaan ka qaadaa dhiirnaan wajihidaada waxay ii kordhisaa dulqaad iyo adkaysi walaal haddii aad caqligaaga si fiican uga shaqaysiisid waxaad awoodaa hool kugu qaadan lahayd bil dhammaystiran inaad ku soo afjirtid maalmo yar oo aad farahaaga ku xisaabsatid walaal masiirkaaga iyo meesha kuu dambaysa ma jirta cid kuu xadidi karta ma jirta cid kuu xariiqi karta oo ku dhihi karta halkaan ayaad ku eg tahay meel aad u dhaafaysidna ma jirto masiirkaaga iyo meesha kugu habboon adiga ayaa xadidan kara adiga ayaa go'aamin kara masiirkaaga haddii aad rabtid inaad noqotid qof waxtar leh qof wax soo saar leh ama inaad noqotid qof ebir ah kadibna aad soo fariisatid meel ebir ah adigoo gacmaha madax saartay oo ilmadu kaa daadanayso noloshana iskaga fadhiistay adiga kala dooro labadan adiga xariiqo xadka aad doonaysid inaad gaartid dooro meesha aad doonaysid inaad gaartid oo aad soo taabatid waxaad ogaataa arrinku uma baahna juhdi weyn iyo dadaal weyn arrinku wuxuu u baahan yahay dadaal caqliyaysan arrinku wuxuu u baahan yahay aljuhdi dakiy laa biljuhdi tabiil uma baahna dadaal weyn oo dheer laakiin wuxuu u baahan yahay dadaal caqliyaysan dadaal ay la jirta khibrad laga soo shaqeeyey marka hore waxaad xiriirka u jartaa arrin waliba oo aad u aragtid inay hoos kuu dhigayso waxaad xiriirka u jartaa caado waliba oo aad u aragtid inay qofnimadaada hoos u dhigayso inay ku liidinayso intaasba xiriirka u jar kadib waxaad bilowdaa caada sare kuu qaada waxaad bilowdaa caada dhanka hore kuu riixi karta oo kuu horseedi karta inaad noqotid qof adag oo xoogan inaad noqotid qof leh shakhsiyad wax ku ool ah qof leh waxtar iyo wax soo saarba walaal waxaad taagan tahay saaxada dagaalka ha eegin dhinacyada waxaad indhahaaga u kala furtaa waxa kugu soo wajahan oo kugu soo foodan dadka kugu xiran waxaad u caddaysaa inay wax waliba macquul yihiin waxaad u caddaysaa in wax waliba ay ka xigaan doonitaan dhab ah iraada dhab ah inay ka xigta ugu dambayn walaalayaal wiil iyo gabarba si kasta oo ay maalmuhu kugu adkaadaan adiga noqo qof ka adag oo xakamayn kara maalmahaas si kasta oo ay nolosha kugu xiriiriyoodo adiga noqo qof adag noqo geesi dhab ah istaag wadada saxan kadibna bilow socdaal dheer oo aad ku raadinaysid meesha kugu habboon ee aad adiga soo xadidatay socdaal dheer oo aad ku raadinaysid meesha aad gacmaha ku soo xariiqatay aan kuu sheega arrin yar oo ku tusinaysa inay wax waliba macquul yihiin haddii lagaa helo doonitaan dhab ah عمر المختار أها شيخ الشهداء وأسد الصحراء عمر المختار لباح سحرها لباحا وحو لدغالمي تليانيغا oo ku soo duulay dalkiisa Liibiya wuxuu ahaa xuriyad doon Umar al-Mukhtar waxa lagu yiri
talyaaniga waxay haystaan diyaarada waaweyn oo aan inaga haysan oo ka dhigin sideen ula dagaalanaa talyaaniga markaasaa wuxuu yidhi walaal si wacan u dhegaysa wuxuu yidhi cumar almukhtaar diyaaradahaas ma waxay ku duulayaan carshiga korkiisa ama hoostiisa waxaa loogu jawaabay carshiga hoostiisa kadib cumar almukhtaar wuxuu yidhi faman fawqa alcarshi macanaa falaa yukhiifunaa man taxtah hadal micnihiisu ahaa allaha carshiga ka sareeya ayaa nala jira oo micigana ah nama cabsi gelin karaan wax carshiga ka hooseeya walaal ku dhaqaaq waxa aad ku howlan tahay adigoo leh qalbi xoogan shakhsiyad xoogan biidnillaah waad ku guulaysanaysaa u dulqaado u samir rabbina tala saaro biidnillaah waad ku guulaysanaysaa arrintaas fa ina allaha laa yudiicu ajra almuxsiniin ilaahay ma dayaco abaalmarinta kuwa muxsiniinta ah ilaahay ma dayaco dadaalka ciddii dadaashay dadaalkaaga wax unbaad ka heli doontaa waxaan ku weydiinayaa su'aal ah adigoo uu kula jiro oo micigaaga uu yahay allaha carshiga ka sarreeya ma waxaa ku cabsi gelin kara ma waxaa ku qalqalgelin kara wax carshiga ka hooseeya jawaabta adig ayaan kaaga tegayaa walaalayaal maalmahan la soo dhaafay waxaan xooga saaraynay dhacdooyinka ka dhacay caalamka iyo ka hadlida xaqiiqda taagan oo la iska indhitiri karin laakiin maanta waxaan jeclaystay inaan jabiga bedelano inaan mawduuca bedelano oo aan xoogaa yar shidaal qaadano waxaan jeclaystay inaan nafsadeyda la hadlo iyo inaan la hadlo qof waliba oo ku xiran kanaalkan garwaaqsi waa anigoo cumar maxamed halkanina waa kanaalka garwaaqsi haddii aad isleedahay kanaalkan garwaaqsi wax unbaad ka faa'idi xitaa hal kelmad baad ka faa'idi ku soo dir kanaalka subscribe saar siina faafi kanaalka mar kale waa walaalkiina cumar maxamed wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh